halkan waxaan rabaa inaan kula wadaago warbixin yar oo kooban oo ku saabsan shir ama meeting yar oo loogu magac daray maxaa inoo dana oon maanta ku qabanayno magaalada Bristol. barnaamijka maxaa inoo dan ah waxaan ku soo qaadan doonaa ama kaga hadli doonaa ama bulshada kula wadaagi doonaa ra'yiyo kala duwan oo dad Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Bristol qaas ahaan anagoo ku eegayna doorashooyinka ka dhici doona 8 June wadankan Britain. doorashooyinkaas oo loo tartami doono Prime Minister wadankan. waxaan wada ognahay Soomaalida degan Bristol iyo guud ahaan Ingiriiska in ay cod bixiyayaal yihiin, dad wadanka ku nool oo canshuur bixiyayaal yihiin, xaqna ay u leeyihiin inay ka qayb qaataan doorashada. waa arinta qasabtay in aan keeno arintan barnaamijkan la yiraahdo maxaa inoo dana, taas oo looga tashanayo ama looga hadlayo waxyaabaha Soomaalida dan u ah anagoo danteena fiirsanayna maadaama dhibaatooyin badan ay naga haysato xagga guryaha, waxbarashada, dhalinyarada, dhinaca crime-ka, waxyaabo badan anagoo og inay bulshadeena ka qaldan yihiin. waxaan muhiim u aragnay in ay isku imaadaan dadka Soomaaliyeed, bulshada kala duwan, aqoon-yahanka, haweenka, caruurta, in laga hadlo maxaa inoo dan ah. arintaas oo fursad fiican aan u haysano 8 June in aan u codeyno Prime Minister nolosheena wax ka bedeli kara. Soomaalida citizen in fara badan oo kamid ah 70% hadda waxaa la oran karayaa Soomaalidu waa muwaadiniin dalkan ay ku nool yihiin. muwaadinku markuu dal ku nool yahay marka xaq wuxuu leeyahay inuu codeeyo, inuu cid doorto, cid uu doortayna inuu la xisaabtamo oo yiraahdo service-ka ma laga qabtay, waxa ma laga qabtay, waxa siiba qabato dantaydu halkaas ay ku jirtaa. waxaad moodaa muddooyinkii ugu dambeeyay inaynu iska dhaadhicino aaminay inaynan lahayn doorasho kala duwan iyo option fara badan aanu hal meel hal xisbi danteenu ay ku jirto. been badan baa jiraysa wax fara badan laakiin si inaynu bal xisaabtan bilowgeeda aynu jahno way jirtaa. xisbiyada kale Labour-ka, Green-ka iyo Liberal-kuba inay iyaguna sidoo kale danaynayaan in community engagement la sameeyaan oo ay kala hadlaan arrimaha doorashada. marka inaga waxa inoo yaala inaynu inaga oo codkeeni oo midaysan xisbigii aynu aragno ama individualkii aynu aragno danteenu inay ku jirto maanta inaanay inaga mahmahan oo aan codkeenu inaga baylihin. taasaynu u baahanahay, taasaynu isugu nimi inaynu bal horta isweydiino aragti wala kala aragti duwan yahay. qaar baa laga yaabaa inay conservative yihiin, qaar baa laga yaabaa inay Labour yihiin, qaar baa laga yaabaa inay Liberal sympathizer yihiin. Green-ka qudhiisa kolley u malayn maayo hadda xaafadda dad badan baa ka jooga intaan ogahay. marka aan ku soo dhawaano anigu intaasaan ku soo koobaya. waxaan oran lahaa meel fiican bay maraysaa, meesha hore looga socdo. had celiyo akhyaarta rag iyo dumarba hawshaan isku soo dubariday, runtii waqti badan geliyay. ujeedkan aadka muhiimka u ah quruxda badan ee la yiraahdo maxaa inoo danana isugu keenay dadka oo aragtidaas ay tahay aragti curduna oonan horay uga dhicin magaalada Bristol, runtiina u baahan in la sii wado waqti badan la geliyo. aadaan horta aan idinkaga mahad celina arrintaas, waana aaminsanahay inay tan naqanayso tii koowaad laakiin aysan noqon doonin tii ugu dambeysay. waxaan rabaa wax badan walaalahay ay sheegeen, waxaan rabaa hal arrin inaan isxasuusino. aniga inta aan Soomaali aan ku dhex jiray ama aan ka shaqeynayay maadaama aan ka dhashay, aniga waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan, runtii dadaal badan, firfircoon, aragtiyo badan leh, ujeedooyinka ay rabaanna runtii isku daya inay wax ka gaaraan. duruufo badan ba ha jiraan. marka aniga waxaan qabaa dad inaan nahay runtii wax badan haddii u jeestaan runtii qaban kara. waxaana tusaale noogu filan magaaladan markaan soo degay siday ahayd meeshaan maanta ku shirayno St Paul's iyo Parton Hill iyo Lawrence Hill iyo meesha la yiraahdo Easton iyo maanta siday tahay waxaan u maleynaa tusaale noogu filan tahay. يعني وقياس كرا
ilka case oo maanta nala joodo ganacsado magaalada kamid ah markuu dukaanka ka furayay Lawrence Hill waxay ahayd waan ognahay maantana waxay tahay waa qiyaasi karnaa marka ma nihiin dad iska jooga meesha Soomaalidu waa dad shaqaysata waqti badan gelisa mataqaanaa magaalada hanti soo saarta shaqaysa oo meelo badan oo magaalada ka baaba'sanayd runtii markay dageen wax ku soo kordhiyay marka anu ma qabo inaan nahay dad mataqaanaa oo mataqaanaa wax qabo yani wax badan baan qabsan karnaa waxaan u baahanahay kaliya inaan ujeedooyinkeena iyo aragtideena siyaasadeed inaan kobcino si ururada iyo xisbiyada dalkan ka jiraahay ay u fahmaan waxa aan rabno ayna runtii ay nagala shaqeeyaan doorashooyin ayaa dalkan ka bilaabanaya mar dhow way jirtaa inay jiraan xisbiyo isyiriba Soomaalidu waa idinka يعني ويجرتها مقالدنا ويعدها ما واحد عصب معها حزبية أساسية سوماليدا ويقول له عدك السوماليدا أنا كو حساب تمينا ويجران أنا وحن قبا أرنتاس إني سنوقل من إني سن أهن وح النجا متقانا إني تها وحنا دعوة عايبة مرك الله فيريو حزبية دل كان كجير مرك الله فيريو إن لما أنت نقول تري هالحزبي كنتي وحنا دعوة عاية ووح أنا متقانا أنا نوقل من وحن ربنا إنا نقنو حزبي كستا إنه نقص أرض حزبي كستا إنه كفكره عد كان يعلس كان إنه كفكره تصالح هل كانوا حنكوها يا جورنال كي مترو ما أنت الدابعي وحن ربا إنا إن تصور لا بصور من نوع جيرمي كوبن من نوع وزير كريمة الدبدة لبده ذو حلا فديان كوميونيتي أو دل كان علس كله سيك كوميونيتي اللي فديان لبده ذو تربيها لو ذحري يا لبده بوحي كله هنتر وأنا لبده حزبي labada xisbiyo dalka ugu waaweyn waa labadoodaba waxay u tageen community-gaas si ay community-gaas cod uga helaan haday laakiin firi waxaan rabnaa inaan maskaxdeena kor u qaadno waa maanta metro ya waxaan rabnaa inaan maskaxdeena kor u qaadno oo aan fiirino sidii aan ku gaari lahayn heerkaas oo kaleeto oo aan u naqanin kuwa ay qolo gooniya ay mool gooniya ay ku haysato aysan hadhow dib noogu soo naqanin firi sida walaalkii Cabdi Cumar sheegay magaaladan waxa ogtihiin khayr Allah siiyo dhalinyaro yar oo Soomaaliya oo badan inay waqti badan galiyeen xisbi kamid ah xisbiyada magaaladan waliba xisbiga magaalada ka taliya inay waqti galiyeen sanadkii horeeto inay saxiixeen heshiis ay leeyihiin mataqaanaa Soomaalida dhibaatooyinkan ay Soomaalidu sheegatay aan wax kala qaban doonaa waxaan wada ognahay dhamaanteen inay waxaas ay wax ka naas cadaaday ama nooga soo naqday oo la taaban karo inaysan ilaa hadda jirin xisbiyadu mar walba waxbay ballan qaadi doonaan waxbay dhigi doonaan waan qabanaynaa laga yaabay qaar badan inaysan qabanin laakiin anaga waxaan rabnaa inaan 4 sano dambe aan meesha u fadhino oo dhahno warshalaan ku warsanay sidaana na tiri waxba noogama soo ka cadaanin maxaa maanta noo sheegay oo gooni ah laakiin ma rabno dhaqankeeni aan meelahaas dalkii ku haysan inaan la nimaan oo ah mataqaanaa martisoorka in qof noo yimaado kalgacalino mataqaanaa wax la qabano oo gadaal la soo warsan dalkan saas uma shaqeeyo Soomaalida meel kasta ay dalka Ingiriiska uga nool yihiin waxaan kula talinaa iyo khaasatan dadka Soomaalida ee Bristol degan waxaan kula talinaa inay xisaabtamaan inay aragti ka yeeshaan siyaasadda dalkani waxa lagu dhaqaa waa siyaasad xisbi baa soo baxa ujeedo u soo baxa ujeedadaas waa inay noqotaa ujeedo aad wax ku dhalaay waa inay noqotaa ujeedo dadkaada wax u taraay waa inay noqotaa ujeedo ku siinaysa fursad ku siinaysa anaga dalkan waan ku cusubnahay sidaan ognahay dhowr 20 sano deganaa waa run laakiin wali waxaan ku jirnaa dadka u baahan mataqaanaa daryeelka ama mataqaanaa yani wax qabad gooni ah dadka u baahan aan ku jirnaa xisbigee noo sameynay xisbigee fursad na siinay xisbigee anaga si gooni ah iyo anaga dadka nala midka ah ee mataqaanaa aan naqaano dalka ku nool xisbigee u dhow wuxuu noqon karaa xisbi kasta ma aha inuu yahay xisbi gooni wuxuu noqon karaa xisbi kasta marka waxaan rabaa inaan ku celceliyo in aan ka dheeraano fikirka ah in xisbi gooniya uu yahay anaga danaheena xisbiyadu waa suuqay mid xisbigi danteena aan ka helayno oo danta dadkeena aan ka helayno ama dadkana la mid ay dalkan ku nool ayaan rabnaa inaan u codayno aanu malihi xisbi hebel mana dhihi doono saacadahan ilaa wali doorashadii iyo wixii way socotaa lama aanan kulmin dadkii sharaxnaa khaasatan dadka ka sharaxan mataqaanaa meesha Soomaalidu u badan tahay magaaladan ee la yiraahdo Bristol Westiga wali lama aanan kulmin dadkoodii qaar baa maanta Siciid la kulmeen waa ku faraxsanahay waxaan rajaynaa laakiin inaan naqano dad aragtidooda ay ka midaysan tahay inaanan fiirinin xisbi ee aan fiirino dan anagu waa inaan naqanaa danley
dad dan leh inaan naqano oo danaheena miiska saarta yiraahda arnagu waxaanan rabnaa yaa wax nagala qabanaya 4 sano kadib aan u joognaa qofkaas dhib ma laha ya waa la iska warsan doonaa laakiin waa inaan iraahno maxaa nagala qaban kartaa waana ka bax horta aad baan ugu faraxsanahay inaan isku nimaadno dhammaanteen waa run waa midkii ugu horreysay maxaa inoo dana anigu markii leaflet kala sameynayay Facebook maan ka arkay anigoo soo madaxweyne fadhiya meesha marka laakiin waan soo dhaweeyay waayo haddaan horena waan idhi haddaan 2 kelmadood oon leeyahay ay wax tarayaan inaan dadkeena odhan karo aad baan ugu faraxsanahay marka aad baad ugu mahadsantihiin inaad soo casuunteen waxa la yidhi intaanad golaha tagin baa gartaada la akhristaa intaynaan xusbiyada tagin ayaa waxay wanaagsan tahay inagu inaynu soo akhrisano garteena oo garteena waxa way maxay tahay de wala inagu isma ogin fahmaysa waxa horta inagu yar inaynu is ixtiraamna waa muhiim imika marka adigu aad xisbi aad rumaysan tahay anna aan mid rumaysanahay waa inaan respect gareeyaa fikradaada oonan ku caburin caburiski wadankii baynu sidanaa in a way oo ma isku quurayno waxa kale oo jira hadduu qofku xisbigan yahay kan kalena xisbigan yahay inay isku arkaan inay caadi isku yihiin taasina ma aha si wadankan u shaqeeyo iyagoo kale xisbiya oo kale aragtiya haddana shahay wada cabayaan yaalistaan waxbay wada qabsanayaan imika 2 inan hadday 3 inan 4 inan hadday kala galaan habloodba kala galaan 5 xisbiya wadanka jira laakiin dantoodu tahay Soomaali maxay noo qabanaa movement weyn bay sameyn karaan because mid kasta wuxuu xambaarsan yahay intaas xusbiya markuu halka codkiisa geeyo uu la yimaado ka kale la geeyo ummadda waxbay nu tari karayna laakiin waan ka xumaa inaan kelmadan iraahdo dadkeenu waa danaystayaal dan guud kama taliyaan waxay ka taliyaan aniga inta aniga inaga baxaysana walaal xusbi ma hortagi karno ee horta kelmadda aynu bedelanaan inaga ya iyo waxan waa waxaygi ilmahana waa ilmahaygi ilmaha dariiqa mariya kaygu waa inay isnaadaan wanaagan kayga la doonayo waa inaan kana la doona intay taalkeen aan u shaqeeyo marka horta anigu aad ugu mashquulayo xisbiyada iyo rag walaal 2000 oo sano soo dhisnaa oo dimuqradigooda ka soo taliyay oo systemkan u soo shaqeynayay oo adiga doonay inay ku milibid gareeyaan oo codkaaga maanta ka ridan dibna goodbye because haddaan ummadeedii weyneyn oonan dhaqankayga weyneyn oonan maxay ahayd toray karaamadeyda weyneyn oonan Soomaaliyeed in aan ahay bartaa isu taagin they're not going to respect me you understand at same time haddana dadkaygu u weynay oo markan meel ku joogo aan respect iga muuqanin tani ma anaga nama matasho ma wallahi waa you see hal qoys ugu dhigto taas shirkaas wad ka dhimatay marka labada waxa weeye inagu first of all waynu isu hanina markuu mid meel tago u hanee waa walaalkay u farax isaguna ha ogaado inuu adiga meesha kugu joogo two way relationship marka ana waxaad moodaa inaan idinku xisbiyada iyo manifestad bad baxdeen laakiin ay hooyanahay hooyaduna inta badan guriga guntiisa ogtaa guriga guntiisna anaka weeyaan anaku bad rago idin ka dambeeyna ana waxaan idin sheegayaa walaal ragaas way tashadeen idinkuna in ka wanaagsan baad talin karaysan yes carruur badan baynu maxay tolo dhalay guriga ugu yar malaha 6 carruur ka soo dareeriyo 7 carruur ka soo dareeriyo walaal inamada dariiqa ha eegina intaasoo inan ayaa sanadkii jaamacadaha inooga soo baxa intaasoo hablood baa inooga soo baxa maxaynu ugu sameyn weynay inay carruurtu doodaan inay carruurtu isbartaan dibadda iyaga they are the ones who's gonna talk behalf of us ma fahmaysa we need to youth keena inta dariiqa taagan wayna ka xunahay inta kale aynu weynayno inta kale si u qabtaan ma fahanti gurigeena markaynu inagu dhisano inagoo isku cod ku hadlayna oo hooyiyo aabiyo ilmihii isku mid u taagan yihiin meesha waa markaan leeyahay ilmo kasta oo halkaa taagan aniga dhalay because waa ilmahayga waa ilmo Soomaaliyeed inta muddo maqanayo qof kale umada maqanayo marka anigu horta halkan doonayay inaan ka hadlo waxa weeyaan yes xisbiyadu manifestooyin bay soo saarteen waxay leeyihiin saameyn badan bay leeyihiin saameyn qaar baa saameyn wanaagsan nagu yeelan kara qaar baa saameyn xun nagu yeelan kara laakiin wadankan rag baa leh oo tashaday inagu citizen bay nahay laakiin citizenkeena miyaynu practice karaynaa miyaynu challenge karaynaa may asuuna inuu tamno isagu daartiisa dheer ninkaasi galo iska tagay ya laakiin inagu maynu ka niman kuna horta waxaan isweydiinay 1 month down the line meel xasuusiyay may qolada qofka la jirtay waxay moodeen inay celebrate iyaguna noqdeen laakiin may noqon reality waa different fahmaysa waxa wanaagsan markaan iraado waniyo barigi wada la qabateen sheekada qofka waynu u kaambeyn garaynay may soconin maxaynu yeelaa how do we tackle in different way
anu markaa manifestooyinku xusbi baan aaminsanahay yes maybe good maybe not good laakiin adigu xusbi baan aaminsan tahay laakiin anigu waxaan jeclahay qof kasta hadduu xisbi kala galo inaan horta ixtiraamiga mudan yahay laakiin aan weydiiyo waayo walaal maxaad ku choose garaysa aniga kayga xataa choose garayta hadduu ilaa laga yaabo indhahaaga inuu sax ku noqdo waa inaan ku dhageystaa dabeedna laga yaabo inaad bedesho laga yaabo in adiga ku bedelo inaga in discussion shir honest ka hadallo ayaa muhiima yeah there is always elephant in the room waa in la taabtaayo la yiraahdo okay maroodigan oo we need to inaan runta isku sheegno okay qof baa la doortay amba guddi buu noqday xataa Soomaaligeena ma saxsana runta dad doonaysaan xildhibaanku muxuu yahay councilorku muxuu yahay MPgu muxuu yahay waxaan u baahanahay inay is educate gareyno ma fahmaysaa qofkii hadan kaba aanu lahayn wuxuu doodo khaya wala hadduu kaba ka yaro xidhan isna offer qofka la casilana maaha in la weyneeyna maaha qofku waa qof adiga kula mid ah wanaag iyo wax sheega markasta waa loo baahan yahay marka anigu manifestooyinkooda aad uga degdegayo laakiin gurigeena inaan dhisano ay horta ka jeclay intaynan umada kale hortagin iga raali hadaan ku dheeraad bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay martiqaadkaada iyo dadka soo qabanqaabi sidoo kale ka soo qaybgalayaasha waxaan idin leeyahay muddo hore aan isku dambeysay marka hore waa salaamantiin ulajeedkeena oo maanta uu ahaa maxaa inoo dan ah waxaan filayaa tan inay tahay oniga garxaar ama bilow sababtoo ah maanta halkan kuma dhammayn karno maxaa inoo dan ah horta waxaan rabay inaan kala cadeeyo laba shay kolley waxa inoo dan ah waa magaalada aan deganahay iyo national markaan ka wada hadleen ra'yiyan midka aniga aan aaminsanahay marka locally loo hadlo dan inooma ahan so marka local aan iraahdo for example meel ama Bristol aan deganahay waa inaan ra'yigayga markaa ka dhiibanayo waxa dan inoo ah aan tixraaca sideedaba waxaan aaminsanaa in aan independent qof shaqsi community-ga wadato aan loo codeeyo kadibna danta fuliyo laakiin taa hadda uma joogno waxaan ka hadlaynaa national electionki taa kuma talinayo independent macnaha wax danteena Soomaali hadeen nahay ama waa taa hadda marka meeshaan ku celinaya marka waxa inoo danaa runtii markaan ka hadalno si abaaye ka dhawaajisa waa inaan gunti aan gaarnaa loo cararin manifestooyinka iyo waxa ay wadaan iyo runtii maxaa waa inaan ka hadalnaa horta maxaa dhaawacyo na soo gaaray maxaa balanyo naloo balan qaaday aan la oofin maxaynu hadda meesha hadda aan taaganahay ama electionka soo socda isku midownaa oo cod oo hal shakhsiya ama hal xisbiya miyaan wada raacna mise nin walba xisbiga uu asaga fikir ahaan uu jecel yahay uu aadaya taas horta waa mid inaan isla fahamno maanta halkan waxaan u joognaa maxaa inoo dan ah marka taas markay tahay aniga waxaan rabay in meeshaan si fiican loo diib galo sababto haddaan niraahno waxaan sugaynaa manifestooyinka kolley maanta waxay naga noqonaysaa markaas maalin naga beerdooda marka waxaan gudageli lahayn maxaa inoo dan ah xisbigee inoogu dhow wixii hore macnaa waa naqaanaa historygiisa maahan midda hadda manifestada hadda uu soo wada maano waa naqaanaa historygiisa iyo waxa maarata uu ku salaysan yahay marka anigoo hadalkayga soo koobayo waxaan jeclaan lahaa inaan hore usii gudagalno maxaa inoo dan ah xageen isku raacnaa ama laborkan isku raacnaa ama labdamkan isku raacnaa ama xisbi inoo danaan isku raacnaa mise min laba nin walba midku horkacayaan meeshiisa iskaga socda taas inaan horta haddaan maanta wax isku raaci karin ama aan dhihi karin wallahi ra'yin hebel 3-4 macnaha xisbigaasa inoogu dhow oo maanta waxaa soo qabtay qaladaad wuu dhici karaa markaas anaga inta u badan aan iraahno bal electionka soo socda runtii anigoo jecel inaan u foodgareeyo laborka ama ledamka laakiin danteena markaan fiirino xisbigaasa igu dhow codkayga maanta waxaa u hibeynaya ummadeeda waxay u baahan tahay marka isku tanaasulna way dhici kartaa
fikirkana in maxaan ku rahdaa walaalka hadduu kaa saxsan yahay la siiyo waa dhici kartaa maanta waxaa laga yaabaa haddaan iraado independent aan u codeyna waa liigu qoslaya sababtoo isno maxaan ku rahdaa waqtigiisa ama micnaha isna wax noo dana laakiinse caadiyan waa aaminsanaa ma fahamta laakiinse hadda waxaan rabaa inaan taladeeda ama in meesha laysku raaco si khaasa u nira maadaama uu live ama facebookna laga daawanayo xisbiga markaas aan isleenahay talada oo ummadeena ama jaaliyadeena uu hormuud kaga noqon karaa janisna waa siinayna taas aan martaa kusoo gabagabeynaya waxaa horta wanaagsan marmarinayaa inaan inaga laftigeena naqaano oo inoo qoran tahay halka dhaawaceenu yaallo cidda wax ka qaban karta the same time inaga laftirkeenu waxaad moodaa horta hadda xisbiyo badan baan u codeynay magaalada waxaa deganay taqriiban 5 sano marinayaa intaa waa vote gareynaynay axsaab baanu codad ka siinaynay ama ha wataan candidateyo inaga naga socda ama kuwa kale ha wataan inta waa codeynayni dadun baa naga faa'iideeyay waxaana dib nooguma soo noqon yaa eedda iskale in wax dib inoogu soo noqon waayaan laftarkeeda inagu qayb intee laag baan ku lahayn maahan axsaabti it's unlikely in nin siyaasi ah oo hadafku lahaa gaaray asagu laba hadaf baynu kala lahayn siyaasiguna hadaf buu lahayn ana hadaf baan lahayn isagu kiisii markuu gaaro halkuu raba inaad tago isaga baahidiisa waa dhamaatay yay baahidiisu taagan tahay ma waxaynu doonaynaa ninkaa baahidiisa dhamaatay inuu intayna soo xasuusto inoo soo noqdo yiraahdo maxaan idiin qabtaa I don't think it's going to happen yay ahayd ma inaga ahayd inaan ka daba tagno miyagaa sugeynay inagu ma tagnay intaa tagnay ma kusoo hungooni kolley hadda waxaan malaynayaa tii u dambeysay maya kumaynaan soo hungoobin baan malaynayaa inaga laftigeenaan wax doonan inaga laftigeenaan weelkeenu tollayn waxaad moodaa bulshadeenu inay ku mashquulso baahiyahaan leenaho fara badan iyo dhibaatooyinkeena oo fara badan inaynan u kala qaadqaadin siday u kala muhiimsan yihiin oo laga yaabo mid baahideedu mountka soo socda ama sanadka soo socda aan ka hawlgeli lahayn inaan hadda miiska soo saarano marka inana dhaliisha iyo inaan axsaabta kaliya waxaan ku daraya kaliya iyo inaan axsaabta kaliya ku tuuranay qaybta aynu inagu ku leenahay aynu qaadano iyada laftigeena say u saxan lahayna aynu ka wada hadalno waa ka baxsan calaykum بسم الله الرحمن الرحيم horta dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan idinka mahad celinayaa xilkan aad kulli isku saarteen bulshada waayo qofka dadka bilaadanka qofun baa isku xil saara aad baan ugu mahadsantiin arrinkan aad soo maanta bandhigteen runtii waa arrin aad u muhiim ah marka loo eego waqtigeenu waddankan joognay iyo muddadaynu halkan ku sugnayn iyo maanta halkan wax marinayno waxaad moodaa inaynu arrinkani arrin aad aynuuga qabiyoobay amba dib aynuuga dhacnay inuu yahay waqti aada u horreeyey ayay ahayd inaynu arrimaha noocan oo kale aynu ahmiyadda siino iyo mataqaanaa in la isla xisaabtamo wixii kaa tegay iyo wixii aan kugu soo noqonin iyo halkaa doonaysa inaad u dhaqaaqdo waa runtii waxa weyn de istaraatiijiyadda cid wal oo kasta oo ummad kasta oo fikiraysa oo hore u socota ay runtii ku fikirto ku dhaqaaqdo weeyaan innaga sida runtii waxa weeye communitygeenu communitiyada kale aynu waddanka kula noolahay waxbaynu kaga gedisannahay waxaa laga yaabaa ummadda waddankan communitiyadii nala jooga iyo dadka jooga dadkan iyagoo wada socda yimaadeen se inagoo kala soconna oo inagu kala nimid baanu nimid meesha marka xaqiiqada meesha loogu tago taasi waa division fara badan baa markaa communityga ku jira politically mataqaanaa si walba in mataqaanaa aynu ku base garayno waxa waddankeenii ka jira halkan aynu joognayno
ama siyaasadda waddankeeni taala oo inaan inagu eegin warniyow halkan inu inagu joognaa maanta intii dadka wada joogtaa kolba isku danahe war inaga maanta halkana ubadku inaga wada jooga inagaa reeruhu halkan inaga wada joogaan inagaa dhibtan ina wada haysataa inagaa gaaladan la nool inagaa mushkiladan maanta ku dhex nool inaguna runtii intaynu caqliyadda iyo fikirkaa keenay kamaynaan wada tashano maynaan odhan war inagu mushaakilkan iyo dhibtan haysta saynu inagu uga bixi karnaa ise waxa inaga xoog badatay siyaasadda waddankeeni taala waxaanu inteenaasoo dhan waxaynu u wada xusul duubanahay nin walbaaba ama kii wuxuu siduu soo dhaweyn lahaa ka yimaada dowladdiisa ama maamulkiisa ama gobolkiisa ama qabiilkiisa ayaynu dhammaanteen ku wada mashquulsannahay aynu juhdiga ugu badan iyo efadka ugu badan aynu gelinaa weliba malaha de somaliland annagu aan ugu firfircoonaana markaasi waxa weeyaan niyow taasi waxay inooga dib riday wax badan aynu lahayn inaynu halkan ka qabano oo runtii aynu aragnay dhibteediina aynu taabanay haddaynu maanta mushaakilaadka caruuraheena haysta mushaakilaadka jeelasha iyo dhibta iyo biliiska iyo sida mataqaanaa rafka ee aynu mataqaanaa communitygeenu u wajahay ay mataqaanaa aynu maanta ka dheehan karayno amba aynu ka arki karayno runtii ma jecli inaan kusii dheeraado isaniyo kule haddii soomaalida waxaa la yidhi haddaynu rahno wax dhaliisheena sheegsheega ma dhamayn karno dhaqan baynu leenahay nin walo kastoo la yidhaha dhaliisha soomaalidaad iyo communitygaaga sheeg maanta dhan haddii 8 saacadood microphone loo dhiibo wadayaa markaasi waxa weeye niyow idinku arrinka aada isku soo xilqaanteen ee aada gelaysaan arrinkaasi waxa aad ka ilaalisaan in loo arko ama cid ka dhex sawirato arrin isaga duraya ama ujeedo leh ama cid ka wajahan in alla yaala intaad ka fogeyn karsan inaad ka fogeysaan intaasaan anigu ku dardaaraya ka bacdina wixii mataqaanaa danahe way qofka dadka bini'aadanku waxa wanaagsan waa loo samraa it takes a time maanta dhan haddaad ugu akhriyayso waxayga wanaagsan wado maanta dhan ku maqli maayo ase waxa xun iyo dhibka iyo hawsha iyo halaaga iyo shaydaan baa kaala shaqeynayo aroortii inuu kusoo raaco kugu agrigareeya laga yaabo ise waxa wanaagsan maanta dhan baa lagu dacaayadayni maanta dhan baa lagu duwi hebel buu socdaa baa lagu odhani dan kaluu leeyahay baa lagu odhani waxaasoo dhan inaad dhabar adeeg u yeelato oonad ku niyad jibin baa loo baahan yahay aad baad ugu mahadsantihiin arrinkaas communitiga isku xilqaanteen intaasaan idinku dardaarmay qaybta labaad aan u gudubno ma u dhibaya haddii ani waan korjoogtada qof su-aal hadduu qabo gacanta ha ii taago haddaad su-aal qabtaan ii taago anaa kula soo hadlayo ya maxamed waa mahadsantahay horta arrintaa markaa abaabuleyn arrintaas waa ka fakernay macnaha in naloo arka dad duray inaan nahay waa sidaas marka waxa qasbay hadeertaan meeshaan inuusan fadhin ma haddaanan qaldaneyn ma qof labor iyo conservative iyo libdom iyo green represent garaynaya jooga mase kulligeen soomaali codeyn doontaana nahay oo dadkooda la hadlay waxaan nahay soomaali codeynaysa 8 June talana iska weydiinaysa macnaha codkooda meeshay ay ku bixin lahaayeen iyo sababaha ay u bixin lahaayeen marka barnaamijka waxaa ugu magac darnay maxaa inoo dana marka maxaa inoo dana dantii waa lagu wareegnay hadda waa qof meel buu ka taabtay usoo laabto point yaal oo laga wada dhawaajiyey kulligeen macnaha hal xisbi inaan u wada codeyno way fiican tahay wax xun ma ah haddaan isku raacno inaan labor u codeyno wax xun ma ah haddaan isku raacno inaan conservative u codeynana wax xun ma ah haddaan isku raacno inaan green u codeynana wax xun ma ah laakiin waxaa muhiima inaan wax isku raacno oo macnaha waxaas markaas ku raacayna danteena annaga aan ka eegano su-aasha cabdi uu keenaa marka kusoo laabanaya annagoon tirada ka badinaynin marka oo macnaha maanta ilaan dadaan dhegeysanaya videoga daawan doona maxaan markaan codeynayno su-aasha waa kusoo laabana cabdi kusoo laabanay markaan codeynayno hadda aan leenahay okay waa 8 June gurigeyga kasoo baxay waxaan rabaa inaan codeeyo cabdi maxaa niyadda kusii qaataa maxaan ku fekeraa maxaa israahdaa macnaha أنا حرام لا أنت هنا قاعد قاعدين قولين راعينا
inagoo maskaxdeena open minded ah Yes. waa inaynu qof walba dhegaysanaa thank you ma fahantay qof kasta markaad dhegaysato kadib in isku imanona kaasi malaha waynoo danaha malaha markasuu ku kala odhan doono may malaha kaasay noo danaha dibadna meel dhexe waa halku liibaan sheegay de haddaan walaalo foodkayga ummadayda ugu deeqayo ana wax rumaysan laakiin haddaan arkayo wixii ummadeena u dana markaa waa inaan raaco marka eeg imika 8 of June waxaan doonaynaa inaynu vision la soo baxno soo maha marka guriga ka baxayno waxaan doonaynaa qofkan kaasin ka doonay way kaasay dan kaasa ubadkii u dana kaasa dumarkii u dana kaasa masaakiintii u dana kaasa maxay tolay qooyinkii shaqaysanayay u dana madaxeen laakiin eeg markaan sii discuss garayno waxaynu leenahay hadafka markaynu leenahay hadhowtana waa in la hadla dad community-ga ka mid oo xisaabta de raadinaya oo dadkii ka daba tegaya ana waxaan leeyahay Cabdixakiin waxaad ugu tiri qolada foodgare waan ku dhageystay 6 months bay maraysaa ama 100 cishay maraysaa waxba ma hayo maxaad ka keenaysaa war wali horta si fiican baynu wada hadalnay waana sax wax kasta horta bini aadan qabto waxbaa ka dhiman oo bini aadan baynu nahay bataa mar walbana caqabada aynu hortaagan taasina nolosha ku xidhan marka inaynu isla garanno wax kastoo caqabada in la yiraahdo see looga baxaa oo su'aal la iska weydiiyo oo xal la keeno hadday dhaqan tahay iyo hadday diiniin tahay way nagu waajib ta kale imanaysa sida ilka casishay ku haran wax walba oo dhaca qayb baynu ka nahay haddaba maanta waxa horta guul noo ah wada hadalkan iyo sheekadan aynu wada hadlayno dooda magaalada ka taagan waayadan aynu isbedelnay waagi hore intayna loo yimaadeen codka siin jirnay kamaynaan daba tegi jirin lamaynaan xisaabtami jirin inuu xisaabtanka yimaado oo aynu kii inoo yimaado inuu la xisaabtamayno horta iyadana in la fahmaa waa muhiim isagana u fahmaa sida cabdiire yidhi wuxuu yidhi 8 June maxaan ku xisaabtamaa haddaba 8 June intaan la gaadhin inaynu saamuuna sheegto waa run dood kale ayaa loo baahan community-gi wax la isweydiiyaa la baahan soo maaha in mataqaanaa sidan round table discussions oo kale aynu meelo kale ku qabanno oo la yiraahdo dadkii oo dhalinyaradii la wareysto dumarkii la wareysto hooyooyinkii waalidkii la yiraahdo maxaa inoo dana cod bay bixinayeen 10 sanadood 15 sanadood horta maxaa inagaga soo noqday maxaa la inoo ballan qaadyada maxaa inagaga soo noqday waynu ognahay aynu cadayntii keenno inagoo aan cidna durayn marka in la yiraahdo war maanta annagu kuma odhanayno aniga imika hadduu qof waa la weydiiyay marka dhigmaad waxaan ku idhahdaa bal adigu isxisaabi yaad u codaysay 10 sanadood ugu dambeeyaad u codeynaysay maxaase kaaga soo noqday marka qofku markaa su-aasha isaga jawaabo maxaan doonayaa oon mudnaanshahaas yaaba imanaysa marka markuu yidhahdo arrimahaasaan u baahanahay then qofkii uu codayn jiray haddii uu arrimahan wax uga qabanayo waa ilaahay mahadi laakiin in la ogeysiiyo in lala xisaabtamayo oo laga daba imanayo xisaabtan ku dhowr nooc buu dhaca waynu ognahay 2 sano ka hor markii doorashadii nationalka la qabtay libdhamka wixii ku dhacay waayo ballanqaadkii bay ka baxeen waa lala xisaabtamay ya haddaba inaynu inagu ogaano idhaahno inagoon qofna odhanayn warkaa xisbigaa u coday iyo laakiin la yidhahdo horta uniyo bal aynu adigu su-aal weydiiye individual maxaa kaaga soo noqday maxaa lagu ballan qaaday yes arrimihii dhalinyarada waxbarashadii shaqadii waxyaalaha qaar waxaynu kala mid nahay ummadda bulshaynu dhex teganahay hadday bulshada madowga tahay hadday muslimiinta tahay iyo hadday bulsho weynta kala tahayba taa waynu u simannahay oo waynu kala mid nahay laakiin wax inoo gaaraa jira haddaba waxaan odhan lahaa su-aasha ugu muhiimsan ee isweydiinayno waryaadaheen qof walba inaynu horta dadkii ku noqono hadhowna wax laisugu keeno oo la yidhaahdo maxaa inoo dana maxaa inoo dana waxay noqonaysaa maxaa aniga igaga soo noqday qofkii hore codkayga siiyey ma la xisaabtamay ya iyo see baan ula xisaabtamaya mudnaanshahana hadda waxaan odhan karnaa intii qodob ee lasoo wada tiriyey baan odhan karnaa war 3 4 10 qodob haddaad qofka hore dhigto 10 qodob lagu wada qaban karo 20 iska badda hadalkooda laakiin 3 4 qodob mudnaanshaha hala siiyo 1 2 3 annaga kuwaasama ya dan laakiin intayna halka gaadhin horta qof walba war 2 sano ka hor baynu codaynay 5 sano 2010kii waynu codaynay ya waxaanu codaynay 2005kii baynu codaynay laakiin maxaa inagu soo noqday qofkaas ma igu soo noqday maanaan la xisaabtamay sida axmed sheegay waa run bar baynu ku leenahay dembiga wax baynu ku leenahay laakiin isweydiintan la isweydiinayo ayaa ah inaynu inagu u baahannahay horta inaynu saxno oo maanta aniga waxaan arkaa inaynu inagu horta nafteena xisaabinta ka bilownayba oo ay tahay xisaabintaasi markaynu inagu san wada hadlayno dee dadka kalena la xisaabtami karna marka laakiin inagoon wada hadlin inagu oo aan qaladkeennii sixin
maantana halkaas ka bilaabatay laakiin anu taasaan soo jeedin lahaa bulshadii in lagu noqdo dadkiina wax la weydiiyo marka anu saasaan oran lahaa بسم الله والله horta runtii waa su-aal muhiima haddaad rabto inaad codeyso maxaad maskaxdaada ku jira ama yaad u codeynaysaa laakiinse waa laga horeeya runtii annaga laftigeena sida mudane uu ka dhawaajiyey waxaan nahay shicib halkaan horta qof maarata maanta community leader ah naguma jira u malaynaya waxaan aaminsanahay community leaderska inuusan ogoleyn ama uusan jecleynba inaan ka hadalno arrimahan horta yaa waa our community leaders yaa waa community leaderskeena sidaa hadda ognahay waxaa laga yaabaa inaan leenahay Somali Front aan u ixtiraamno inuu asaga haddee noqon lahayd uu dabagalo wax walba oo naga mas-uula haddaan maanta aan niraahno for example okay aan u codeyno shaqsigaasaa fiican ama inaan still shicib aan nahay marka waxaan soo jeedin lahaa sida walaalkee ka dhawaaji waa inaan isku noqono dadka aan u aragno inay anaga etifdeena qaadayo ama aan raano okay maxaa inoo dana aan iyagana ka soo qayb gelino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دمانتي واني دوا السلامي دود مناكسن باك دعد ميشا aad baan idinku mahad celinay intii soo qaban qaabisay inta ka soo qayb gashay magaalada Bristol hadda sanad ka hor waa meedeedii doorasho ka dhacday maayir bayna doorano meel xakana la saaray mooyirkii dadkiini magaalada sida Cabdi Cumar Saciid Cali Casayri nimanka noocaas ma la xisaabtanteen ma ka daba tagteen maxay noo qabsoomay sanadka waa mahadsantiin horta waa mahadsantiin dadkii soo qaban qaabiyay maxaa inoo dan ah ma hadda kuwada ayaga u soo jeedinaya midda labaadna barnaamijka hadda laga dhawaajiyo waa barnaamij fiican inkastoo uu leyd yahay waqti dambe yahay doorashada horteed waayo waxa waaye inaan raadino dadkii baahiyahooda iyo meeshii aan ku subi lahayn ra'yigii la isku raaci lahaa waxay u baahan tahay waqti hal maalin laguma dhamay karo marka aniga ra'yigayga wuxuu yahay horta waa fikrad fiican maxaa inoo danaba haddaa keenteen waa tii ugu horreysan Soomaali ka soo anta meel isugu timaada maxaa inoo dan ah wixii inoo dan haddaan kasno waa raynay guushii aan rabana waa gaarnay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soomaalida soo qaxday waxaa la yiraahdaa kuwa ugu siyaasadda ugu galay wadamada qarbiga waxa uu horeeyay dadka Minnesota dadka Soomaalida degan oo dadka inta badan la sheegaa waxaan rajeynayaa inay Bristol noqoto Europe magaalooyinka ugu horeeyay ee ayaguna midaal loo soo qaato doorashadu waa xaq ayaan leenahay inaan cod bixino marka أنا وحان قبا قرن أنه ضد minority أنا هو ير مقالة دقن interestنا وعلينا حدان إسكت دوبنانين أو أنا اللي درهذا ضد كان له جامين يا أنا دبص عنه تاجرين أو مركي لما جو أنا قرب قلين وحال الله ملاينا يا إنه يهقف إسكهلية إلهي بمهد لسكون كان هالكن قف كستو سوق المقابلين طبعا أنا مهد نقيا taaw cabdi ka dhawaajiyay markii dhaweytaa waxaan qabaa bulshadu marka ay sheekaystaan baa laga yaabaa inuu result soo baxo dabcan waa markii labaad mise markii saddexaad ahan miitinada hore maxamed soo qaban qaabiye baartilaan isku aragno haddii aan la sheekaysan dadku isma baranayaan dabcan oo dee wixii jiray iyo baahiyeen cid qori karta ama ogaan kartaa ma jirto Soomaalidana sida lagu yarxanto waa iska Soomaali oral society oo waxay nagu yar inaga wax recordina imika waxaan isweydiinaynaa wixii maxaa inoo qabsoomay intaa qolada hayseen khalaadadii ay galeenna wax qoran oo ama verbal ama written ah lama hayo ama recorded ah oo qoladii hore la daba gali karo marka waxaan leeyahay anigu chance ahaan waxbaan u baahanahay qaba oo fikir kulli dabcan in la hore looga hadlayna waa laga yaabaa laakiin Soomaalidu ma haysato ilaa generation keena yaryar ilaa kuweena waaweyn meelahan maqaaxiyahan iskugu nimaadna mooyaan iyo leen santaradan caadigeeda qof walba ama u noqoto community ha noqdo ku raadiyo wax ama ha noqdo like meel public oo Soomaalida ay ku cayiman toolada gurigaas waa gurigii Soomaalida haba la iska bixiyo maalin walba xaflad baa dhacda meeting gaar ah jiro Soomaalidu ay bixiso 60 pound 100 pound la bixiyo individually war ma kireysan karnaa inagoo Soomaaliya baahiyeena meel aan kaga hadalno oo guri caan oo inoo gaara haddii la ku roon yahay taasi waa kulli waa iga fikirun insha Allah haddii la helo waxaan filayaa dhalinyarteen inaan xataa
u barfaad garayn karno waxyaabo badan oo ay kaga faa'iideysan karaan ha noqdo xaggii entertainmentkii ha noqdo xaggii educationkii ha noqdo xaggii tartankii kale ee aan u qaban lahayn dhaqankii ama traditionalkii wixii la lahaa wadankan integrationkii waxyaabaha looga baahan yahay waxaasoo dhan oo laga yaabo wax koobi karo oon chance kaga faa'iideysan karno teenan maanta iyo doorashadan soo socota haddii aan soo gaabiyo qofka bini aadanka ingiriisku waxay aada u jecel yihiin waa dad necab horta isbedbedelka iyo waxyaabaha laakiin waxay jecel yihiin inay istig noloshooda meel ay dhigaan taasayna habi ku yihiin waa biiska lagu tilmaamo ay kaga horeeyaan Yurub ama adduunka oo dhan loogu daydaayay waa taa isbedelka inaga dib inoo dhigay waxaad moodaa Soomaalida haddii aan nahay waxaan rabnaaba oo aan isku raacsannahay marka laga yimaado ama siyaasadda marka laga yimaado community-ga warbaahida exactly dadkeenu ay u baahan yihiin waa maxay ma lack of education baa haysta ma lack of awareness baa haysta ma haysta maxaa la yidhahdaa ma isku xidhnaansho la-aan dhexdooda haysta wax haysta waa maxay haddii aan taa garanno oo ilaahayba garansiiyo dhowr qof oo ogtaa oo aynu qoranno generationkeena dambena waynu badbaadin karnaa oo waynu ogaan karnaa waxaan booqan jiray oo anigu tegi jiray individually muddo ilaa sanadii xoogaa jeelasha oo Sundayda oo anigu iska tagi jiray oo isxil qaamay oo caruurta soo eegi jiray kuwa ku xiran maraan u geeyo xataa wax maxamed waan kala hadlay waa la waayay markii ugu dambeysay noo yeedhin waxay dhahan dad volunteer cabdi iyo Muxiidiin iyo dhowr nin baan ugu tagnay dad badan oo 6 qof oo Gloucester ku jira xataa dhalinyaro oo diinta ka baxay laakiin looma ogola in la galo serious arrimada Soomaalidu waxa weeyaan xoog ay orbitka uga baxday alxamdulillah nin walba uu nool yahay oo caafimaad qaba laakiin ma eegayna inagu aanu niyo waxaan leeyahay nimayo inteena waaweyn wax fahmaysaa inaan inagu xisaabtamin laakiin generation keenan dambe soo kordhaya waxay ku daydaan taas baan anigu leeyahay kaga baxaya kulli balan aan follow garano insha Allah assalaamu calaykum warahmatullahi horta anigu waxaan oran lahaa fikirkayga aan qofka oran lahaa maanta inagu waxaan dooranaynaa MB xaafadan laga dooranayo qofkaas siyaasiga markii la dooranayay albaabka ku soo garaacay wuu codkaagu ku weydiistay codkaaga la'aantii horta qofkaas ma soo baxeen waa inaad fahantaa halka codad siisa waa muhiim maanta haddana codkan kuraasta 4 kursi oo Bristol 3 kursi la isku haystaa 3 kursi Soomaalidu way degantay 3 kursi waxay kala saarayaan ra'iisul wasaare inuu qofku ku noqdo ayay muhiim u tahay waad aragtay ra'iisul wasaare wadanka haystay ayaa yimid xaafadan aynu ka codeynayno sababtu yimid codkaagu inuu muhiim yahay way waa inaad fahantaa haddaba adiga maxaa muhiim qofkan aad dooranayso sanad iyo barkaa uu joogay ee dooratay 2015kii ma aragtay oo baahidaada ka jawaabay waa inaga waxayna haystay imika guryaha dhibaato inaga haysta waxbarashada dhibaato inaga haysta shaqaalaha dhibaato saddexdaasba wayna saameynayaan xagga caruurta dhibaatadu haysato qof wal oo Soomaaliya maanta magaalada degan dhinac buu ka soo galaya oo caruurtaas way ka soo galaysaa maxaa haddaba qofkaas siyaasigii inta uu joogay uu wax ku taray aad ku dooranaysaa xusbigan iyo inta la iska iloobo qofka siyaasiga ee shakhsiga ah ma kugu soo noqday localkan kula degan Bristol oo dhibaatooyinka maxaa kaaga qabtay markaad u baahato ee baahi ku qabato ee wax uga baahato ma heli kartaa ma arki kartaa waxa weeyaan siyaasiga waxa uu doortay inuu ku adeego adiga waa adeegahaaga wadantaada adeego markaad imika wax u baahato dhibaato ka haysto inuu ka caawiyo weeyaan oo taa codkaagaasna wuxuu muhiim u yahay adaa meesha dhigtay inaad la xisaabtanto haddaba community ahaan marka haddana u soo noqoto community-geenu xaq badan buu leeyahay markii doorashada maalintii alsha codka lagu tiriyo ayaan joogay tobaneeyo MB waa councilor baa soo baxay oo u soo baxay xusbi tobankuba waxay yiraahdeen Soomaali baan soo saartay maayirku xitaa ku jira waxay yiraahdeen Soomaali codkeeda ku soo baxnay saddexda xusbiye kale la tirtamay waxay aqoonsadeen in dadkan Soomaali soo saartay maanta waad arkaysaa conservative-ku inoo iman jirin tiraba 2 jeer bay noo yimaadeen markay nala fadhiisteen maanta waxay keeneen wasiir dhan bay keeneen xaafadii Eastern iyo dhulkan ma iman jirin dhulkoodii mu ahayn waxay og yihiin dadkan codeynaya waa Soomaali codka Soomaalida amba 2,000 amba 3,000 Soomaaliya lagu soo baxaya waa codka wax kala saaraya qiimahaas aad leedahay waa in qofku fahmo haddaba qiimaha hadaad leedahay anna maxaan iibinayaa dee iyo waxba iga iibinayaan oo kun qof hor keenay anna maxaan doonayaa in dee ka iibiyo in dee kala soo baxon ka faa'iidadii arrintan hadda anaga ka hadalnay isugu nimid shakhsiyan anaga isku soo xil saarnay qof nagu beegareynaysa ma jirto waqtigana u soo hurnay haddana mar labaad waa inaan u hurnaa oon macnaha miradhal suu u noqdo kulankan suu miradhal u noqdo waa inaan caddaynaa marka wax ka soo bixi kara ama
shirkiisa labaad yaan kula kulmi karnaa ma nagala soo qaybgeli karaan baartiyaasha dadka matalaya sida conservative-ka iyo libdamka iyo laborka iyo kulli ma nagala soo qaybgeli karaan su-aasha ugu dambeyso aan rabo inaan idin weydiiyo intiina meesha ugu dambeyso waxay tahay waa daqiiqad waan shiri karnaa mar kale waan isku imaan karnaa marar badan holol inta karaysan saan oo kale soomaalida wacyigelin waa u samayn karnaa laakiin soomaalida halkan degan yaa mas-uul ka ah haddii balage aan la galno nimankaa yaa beri noo soo deliver garaynaya yaa nagula soo dhiibaa who is responsible السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta laba su'aalood muhiim ah meesha yaala labada su'aalood muhiimkan waxa weeyaan waa ayu hoggaankeenu horta waxna inaga doonayna waan kaaga jawaabayaa toos waliba waxna inaga doonayna waxna systemkii meesha yaalay dawladaha hoose ayaa doonaya inagu waxaynu doonaynaa halkaas iska dhig mararka qaar ko systemkan qayb baynu ka mid nahay maanta Somali Forum baynu hogaaminaya daraad cid baa joogtay markii ka sii horeysay dadkii joogay baan ka mid ahaa waa la iga dambeeyay group baa maanta guddi baa haysa yani waynu in kulay saan hore u sheegay wax walba aynu qabanno waxba inaga qabiyaan marka in la isgarab taago oo la israaco oo la isa soxo taasi waa waajib runtii marka la eegana aynu ka hadalno saacaba maran ilaa 2009 baalka la furay gar ilaahay bay taqaana wax la yiraahdo sida ummadaha kale loola dhaqmo ee loo maalgeliyo loo maalgelin waanu ku dagaalanay ilaa maantana tiibaa taagan marka qof walbo yimaada haddii maanta shanta nin ee ugu culumsan ee ugu aynu u keenno meesha caalimsan dhibaatay kala kulmayaan waayo wax yaalla ma jiraan habeeraatay in la isgarab taagana waa muhiim waxaan u soo noqonayaa su-aashii Fuaad ee ahayd dad baynu dooranay maayar baynu dooranay sanadkii hore magaalada ka taliya waa run maalin dhaweyd meeting baa dhacay lagula xisaabtan weliba aad lagula xisaabtan forumkaa hogaaminayay waan wanaag fadhiyay khaliil baan joogaysna runtii marka loo hadlo horta aad baan ugu ammaanayaa in laga daba tegay waqtiga doonta ha qaadato laakiin inuu kulankii dhacay wuu dhacay kolley wixii halkaa ka dhacay anagu runtii marka la eego anigoon sii gudagelaynin wixii haa iyo maya iyo wixii aynu doonaynay waxba lagama qaban arrimihii weli way taagan yihiin ma fahanteen forumkana waanu ka wada hadalnay in laga daba tagana waa muhiim laakiin waxa muhiima oo iyaduna aynu doonaynaa inaynu fahansiino ninka ama maayar ha ahaado ama xildhibaan ha ahaadee aynu doorano ee codkeenna hayaa waa inuu ixtiraamkeedayna siiyaa ama dariiqa aynu ku kulanno ama xafiiskiisa aynu kula kulanno waa in ixtiraamkeedii laga helaa oo uu sida uu inoola dhaqmaa si saxa sidii loogu talagalay number 1 waa public servant waa qof dadka u shaqaynaya ma fahanti dad baa doortay imika xaafadda qofka aan deganahay imika Bristol West qofka xildhibaanka ka ah haddii aan doorto iyo haddii aanan dooranba waa inuu u shaqeeyaa labada qof waa inuu dadka ixtiraamaa haddaba ta aynu mudnaanshaha siinayno ee innagana inaga maqan in aynu helno ixtiraamkeedii oo marka aynu dadka hor tagno aynu la dhaqmayno waa in sidii loo baahnaa laynala dhaqmo manaha haddii maanta Cabdi iyo Axmed iyo ag fadhiya haddii si adag qaldan loola hadlo waa inay dhahdaa wartaasi nama qabatee annagoo dhan baan wada soconay naga daayay haddaba waxaan kusoo gabagabeynayaa horta in wax la isweydiiyaa waa muhiim caawana wax baynu isweydiinay fariinta aan doonaya inay baxdo waxay tahay laba fariimo oo ah ta koowaad ciddii codkayaga qaadanaysa inay ogaato in lala xisaabtamayo oo isbedel dhacay sidii waagi hore haddaan intaanu ku siino ay iska tegi jirteen waanu idinla xisaabtamaynaa oo maayarkaba waanu la xisaabtamay ta labaad ee kale timaada in aynu mudnaashihii siino aynu idhaahno horta innaga maxaa inoo mudan qofkii aynu sanadkii hore siinay iyo 10kii sano muxuu inoo qabtay maxaa inagaga soo noqday war canshuur baynu bixinaa waxbaynu magaalada soo gelinaa xaq baynu u leenahay maxaa inagu soo noqda marka taana inaynu shirar kalena qabana waa muhiim waxaan ku soo gabagabeynayaa awoodeenna maxaa loo jeedaa maroodiga la yiraahdaa ay awoodiisa aakhiraha la tusaabay Soomaalidu jeexdaan awoodda aynu leenahay aynu is eegno waxaan wadana waxay tahay waxaan rabnaa inaan codkeena aan iibino war codkeena horta anaga aan tusno intaan meesha iskugu timiday horta aan babaxan aan wax qabano
ani ninka maalin hore waa is aragnay waxaan ka hadalna qashin ma la yaalo hadalladan dhawo ogi oo kusoo celina haddaan rabno inaan wax bedelno waa in horta anaga aan hayfista qaadanaa aan jidka nadiifsanaa waa lagu arkaa codkaaga waa lasoo raadsanaa hadda nina imaana la ninka wuxuu raadiyay ma yaqaanaba istabartooda la wereeriyey ninkaana qabsada ninkaana qabta qorsagaar waa wereeriyey confused.com is gone marka waa mahadsantiin walaal kulankii aan qabanay waxaa looga dooday laborka manifestooyinkiisa waxyaabaha uu soomaalida ka rabo conservative-ka green party-ga oo ayagana Bristol hadeertaan aad iyo aad ugu soo badanayo iyo liberal democratic-ga party kasta wuxuu soo saarayaa manifestooyin uu rabo inuu kusoo jiido ummadda Soomaaliyeed si uu codkooda ugu helo annaga ka Soomaali ahaan waxaa mas'uuliyad naga saaran in manifestooyinkaas aan fiirino akhrino fahamno ka tashano ururada magaalooyinka degan bulshada sida Somali Forum kale uu horjoog ka noqdo arrimahaas noocaas oo kale ah waan ku dhiirineynaa doodaheena dambe inay ka soo qayb gali doonaan dad badan iyo organisationo badan haba ugu horeeyaan Somali Forum waxaan sidoo kale halkaan uga mahadcelinayaa dadkii waqtigooda u soo horay in ay ka soo qayb galaan xafladan ama inay ka soo qayb galaan debate-kan ama doodan ama tala wadaagan la yiraahdo maxaa inoo dana waqtigooda iyo dhaqaalahooda waliba ku bixiyay ayadoo jirin cid fangareynaysa ama lacag ku bixinaysa programmada noocaasa laakiin waa wax anaga inoo yaala inaan ka hadalno waana in uu bilaabo anaga qof naga mid ah waa ku faraxsanahay aniga iyo dadkii la shaqeynaya inaan hawshaas bilawnay mana ahan mid hadda joogsanayso waan sii wadi doonaa waa wacyigelin waa khayladhaan dadban meeshaasaan kasii wadaynaa